sida la socotaan barakicintii dadka danyarta ah ee shacabka Soomaaliyeed wali way socotaa dhowr bilood ka hor warbixin ka timid UN-ka waxay sheegaysay 148,000 oo qoys in la barakiciyay maanta waxay kor u dhaafayaan 200,000 oo qoys in la barakiciyay barakicintaas waxay leedahay saameyn kala duwan laakiin maanta waxaan rabnaa xaraashka dhulka danta guud saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka inaan kor istaagno sida la socotaan dhulku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ay dadka Soomaaliyeed hantidooda ay gashtaan oo adduunkaas kale looga yaqaano stock exchange Soomaalidu saamiyo shirkado ay ka gataan waaweyn ma qabaan iyo suuqyo dahab lacagtooda ma geliyaan waxay geliyaan dhulka haday joogaan dalka iyo dibadiisa intaba waxa dhacay bangiyadii bixi jiray raxmadda markay muraabaxada bixiyaan dhulka ay raxmad u qaataan saa la socotaan ayaga naftoodana dhulka ay gashtaan dhaqaalaha ama depositka ay hayaan lacagta ay dadka u hayaan sababtoo ah ogtii lama ogolo 20% ka badan bangiga inuu cash hayo waa inuu lacagta wareejiyaa oo dib suuqa u geliyaa lacagta ugu badan bangiyadu waxay geliyeen dhulka raxmadda ugu badan ay dadka ka qabtaana waa dhulka dawladda iyo mas'uuliyiinta dawladda markay suuqa ku soo daayeen dhulkii dawladda oo lahayd oo waxa laga reebin waxay keentay dhulkii inuu jabo oo maalihii dhulka prime-ka ah oo meelaha magaalada ugu muhiimsan ku yaala iyo kuwii magaalada banaankeeda ku yaala inay isku qiimo noqdaan qofkii shalay muraabaxo ka qaatay bangi ee raxmad dhulka taalay dhulka markuu jabo wuxuu ku jabay bangigii qofkiina lacagtiisa kama bixi karo sababtoo maalgashigiisii ma dhaqaaqayo bangiyadii lacagtii dhulka ay geliyeen kama soo cesho karaan tii ay raxmad u hayeen way ku kor jabtay dadkii dhulka gatayna dhulkii waa ku raqiisay oo kor jabay xaaladaas markii waxay abuurtay in dhaqaaqii ganacsi ee suuqa dhulka oo dumo taqriiban oo dumid ku dhow yahay taas waxay sababaysaa marka in haddii hal sektor oo dhaqaalaha kamid ah ay dhibaato soo gaarto ama hal qayb oo kamid ah qaybaha kale oo dhan way saameynaysaa waxaa yaraatay awoodii wax gadashada ama wax iibsiga dadka waa yaraatay waxaa istaagay ganacsigii iyo maalgashigii gudaha ka jiray ugu yaraan taqriiban istaagay waxay keentay marka dadkii kale hantida haystay inay hantidoodii la baxaan midaas waa midda keentay lacag ku dhow 4 bilyan in dalka laga bixiyo oo dibadiisa lagu maalgashto Kenya Congo South Sudan iyo Zambia la aado Soomaalidii lacagteedii ay la cararaan waxa intaas dheer oo dhaqaale xumada sabab u noqday in bangiyo ajnabi ah oo dalka u yimid sheegtay inay sameynayaan maalgashi projectyo waaweyn mega project wuxuu madaxweynaha ku tilmaamay ay u soo noqdeen bangiyo xawaalad ay noqdeen saa la socotaan bangiyada iyo xawaaladaha Soomaalida lacagaha dibadda laga soo xawilo oo dadka Soomaaliyeed ay soo diraan oo 1 bilyan iyo bar ilaa 2 bilyan ku dhow lacagahaas waxay ku hayaan dibadda dadka gudaha ganacsatada ah ee banaanka lacagaha inay wax ugu soo iibsadaan raba ayay ka siiyaan halkaas annaga ma qabno bangi correspondent la Soomaaliya hadda kama jiro waxaan isticmaalnaa marka bangiyo kale oo ajnabi ah la isticmaalaa lacagaas marka la isku dabaro oo dibadda laga soo xawilo ganacsatada dibadda ka rabtana xagga laga siiyo lacagtoodana inta looga celiyo bangiyadii sheegtay inay sameynayaan maalgelin iyo ayagii xawaalad isku bedelay maadaama ayaga ay leeyihiin awoodda correspondence oo la aqoonsan yahay bangiyada adduunka laga aqoonsan yahay ayaga xawaalad noqday waxaan xog ku haynaa in bangiyadaas qaar kamid ah ay usbuucii 20 milyan oo cash ah dalka ka qaadaan sida la socotaan dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 7 bilyan oo dollar inaan wax soo dhoofsan waxaan anaga ama isticmaal ama xirano ama dharkeena kulli dibadda ku yimaada 1 bilyan wax ku dhow waxaan ka helnaa export waxa naga dhoofin bangiyadaas markii waxay keeneen inay bangiyadii kale iyo xawaaladihii gudaha ku jiray
ay daciifiyaan halkii maalgashi laga sugayeen ee ayagii economigiisa gareeyaan ay dhuuqaan dhaqaalihii dalka waxa kaloo dhaqaale xumada sabab u ah oo keenay lacag 1 bilyan ku dhow oo deeqihii Mareykanka bixi jiray oo sanadkan go'day dhowr kun oo Soomaali ah ayaa ku noolaa oo magacyada aan maqasheen oo dadkan consultancy la yiraahdo ama adeega shirkadaha adeega service-ka bixiya dadka ka shaqeysta oo kumanaan kun ah lacagtaas ay Mareykanka Soomaaliya ku deeqaan waxay mari jirtay hay'adaha internationalka xataa ama CARE ama SAFE ama IOM ama UN-ka agency-yada kala duwan lacagahaas ayaa mari jiray shaqaale Soomaalida ka shaqeey jiray kuwa local ah qandaraasyaha laga qaadan jiray howl baa la qaban jiray lacagtaasna way sanadkanba totally lama hayo marka 1 bilyan almost waa 10% oo GDP-ga Soomaaliya kamid ah waxaas dhimay xawaaladii dibadda ka imaanayay oo waxa ogtihiin dhaqaalaha wadamadaas galbeedka ah markii dadkii nationalistiyaasha ahaa ee wadamadaas yiri annaga wax dibadda deeq la geynaya ma jirto dawladdu waxay ku qasbanaadeen in ay dhaqaalahoodii hoos u dhaco deeqihii ay yareeyaan dadkii xataa Soomaaliyeed ee shaqooyinka heli jiray inay shaqadii ay ku adkaatay oo isdhintay xawaaladii ay isdhintay dadkii qurbaha ka imaan jiray Soomaaliyeed oo yaraaday sababa dhaqaalaha noqdaan ama sababa aan gadaal ku sheegi joorno oo arinta e-visa la xiriirta ah waxa dadka cusleeyo kale canshuur xad dhaaf ah dawladda sanadkii la soo dhaaf 480 milyan ayay ka qaaday canshuurta gudaha canshuurtu waa wax sax ah muwaadinka waa inuu canshuur bixiyaa dhamaanteen canshuur ayaan la ka qaadaa laakiin canshuurtu maxaa u bixinaysaa waa in adeeg lagu siiyo 480 milyan oo u dhiganta 45 budgetka dawladda ayaa la aruuriyay laakiin ma loogu adeegaa dadka ganacsiga markuu dekada ka yimaado hadduu jumlo la iibinayo haddii tafaariiq la iibinayo mishaarkaaga canshuurta jidka oo gaariga iyo bajaajta guryaha kulli waxa laga qaadaa canshuur laakiin dadka ma loogu adeegaa haddii loogu adeego hooyo Soomaaliyeed isbitaal hortiisa kuma umusheen mid kalena lama barakiciyeen oo magaalada banaankeeda ma aadeen haddii dadka wax lagu qabanayo dadka inta la qasbo la yiraahdo xabsiyada lagu xiro interlog xaafadiina dhisa oo lacagtiina hadaad bixi weysaan waa la inxirayaa lama dhaheen timajaraha ama cooshada inta lagu galo canshuur bixi hay'adaha nabadgelyada ma ay dhaheen haddii dadka wax loo qabanayo taas waxay sababtay marka in dadkii canshuur xooga laga qaado la qasbo la kor taagan yahay lacagtaas canshuurta looga qaadanay dabaqada siyaasadeed ay kala goostaan oo ayaga yihiin wax ku tamashlaynaya ku raaxaysanaya ayaga isticmaalaya iyo dadka ayaga faamiladooda ama qaraabadooda ama ehladooda ah oo dadkii masaakiinta ahay aysan ku soo noqonaynin waxa intaas dheer in adeegii kale dawladda laga wada dhigay shirkado gaar ah shirkado qoys leeyihiin ama qaraabo leeyihiin ama ay leeyihiin dad saaxiibayaal ah haday tahay hadaad rabto CID inaad warqad ka qaadato ama dhalasho aad qaadato ama passport aad qaadato ama aad kaar kala qaadato ama aad service kasta oo dawladda leeyahay ama aad dekada alaab kala soo dagayso wax quality control loo bixiyo meel ku fadhiyaan ama shati aad qaadanayso wax kasta oo adeeg ah lacaga laga dhigay lacagaas waxaana haysta waa la commercialize gareeyay service-kii dawladda adeegii dawladda ayaa la ganacsiyeeyay shirkadaha wada haysta intiisa badan shirkado dad qaraaba ama saaxiiba ama ehla ayaa lagu naasnuujiyay marka dawladdii dhameed waxay noqotay shirkad siyaasadii waxay noqotay ganacsi dalkii wuxuu noqday suuq dadkiina saami la kala iibsanayo ayay u akaadeen waa arrin aad iyo aad looga naxo in waxa dhan oo la isku haysta oo dawladnimadii la sugayay inay ummadda faqriga ka saarto cadaalad u keento sinaan u keento amni u keento horumar u keento diintooda iyo isirkooda iyo qiyamkooda iyo dhulkooda u ilaaliso waxay isku bedeshay dawlad ganacsi oo la isku naasnuujiyo iyo shirkado ku abaabulan lacagta danyarta ah inay dhacaan waayaan daraka weyn waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka doorashada gaar ahaan midda ka socota
gobolka banaadir hadda hertaan oo waa la bilaabaa la leeyahay sidaa la socotaan doorasho hal dhinac ayaa socota oo sharcigeeda guddigeeda farsamadeeda qalabka lagu shaqaynayo kormeerkeeda hal xisbi iyo hal nin oo xisbigaas madax u ah ay leeyihiin ayaga isku haysta ayagii yaa kala tabanaya qof kula jirta ma leh doorasho waa in intaa sheegay heshiis laga yahay sharcigeeda siyaasadeeda guddiga qabanaya qalabka lagu qabanayo kormeerkeeda waxaasoo dhan in heshiis laga yahay ayay u baahanta hadday maanta marka halkii xisbi ee waxa qabsanayay cadaalad darka dhex samaysay maxaad u malaynaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed inay cadaalad helayaan ha ka yaabin waxay u socotaa colaaday u socotaa taas waxa ka daran bulshada sida aragta loo soo dhawaateeyay oo 230 kun oo qoys oo kamid ah la barakiciyay cashuurta inta laga qaato lagu tamashalo ayaga lagu celinaynin hooyada ay banaanka ku umulayso midna habeenkii u baryayso kaar aqoonsiyo lagu qasbay inay qaadato waxa ka dhacaya garoomada diyaaradaha ogtihiin oo jidkan sahal hadaa mar maagto isbaare ay ku taalo oo hadaa rabto inaad ka soo dhoofto magaalada banaankeeda airport ka dhoof amaagto 12 isbaare amaraysid dadka saas u cadiban oo wiilka bajaajta wadka ee jaamiciga ah ee bajaajtiisa oo la baxsan la yahay ee hooyada saan sheegnay ee banaanka u umulayso aabaha hadoo garsoorka aada cadaalad u soo helaynin ayaa waxa la leeyahay waxaan u qabanaynaa doorasho qof iyo cod nimankii bray hantidii dawladda ka dhargay ayaga asxaabtooda ay ka dhargeen ayaa habeen kasta intay dad masaakiin soo aruuriyaan hooyooyinka masaakiinta inta la soo aruuriyo kaarar beena loo qaybiyo aa lagu korta mashleeya waxa la yiraahdaa doorasho qof iyo cod ayaa la qabanayaa rasuulkeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam idaa lam tastahi fasna maashit hadii aadan xishoonaynin oo wax qiimo ku celiyo lahayn oo iska baashaalaysid nin xarunta uu degan yahay 15 kun oo dollar ugu ijaaran tahay oo jaabka dawladda laga bixiyo oo lacagta asaga soo rabo ugu tamaashaado oo wax la xisaabtamayo jirin oo qandaraaska yimaadaba qaadanaya oo hantidii dawladda qaadanaya ayaa wuxuu ku leeyahay doorasho qof iyo cod ayaan qabanaya waxaana u gudbo qodobka e-visa oo dooda ugu badan ay ka taagan tahay maalmahana ka taagneed sida la socotaan dawladda Soomaaliyeed federaalka ah sharciga caalamiga markii la fiiriyo ama dawladnimada markii la qeexayo waxay leedahay wax la yiraahdo de jure power awood sharciye dawlad ku tahay dalka matasha laakiin de facto power awoodii waaqica inay xukunto oo dalka kama wada taliso dawladda laakiin si sharciye u talisaa oo adduunka aqoonsan yahay dadka oo Soomaalida ay kamid yihiin Somaliland waa la iska aqoonsanaa in kastay dhahan waa go'nay waa madax banaanahay laakiin waaqicaas way hoggaansanayeen maxaa cadeynay inay hoggaansanayeen hawaday ku wareejiyeen dawladda federaalka inay maamusho baasaboorkay qaataan oo lacag tiro badan oo musuqmaasuqa looga qaadaa markay dalbanayaan qof marka hawada ogolaaday baasaboorkii ogolaaday viiso inuu diido dhibkeeda iyo mushkiladeeda ma laakiin maxaa dhacay waa loogu awood sheegtay wixii markii la isku awood sheegto dawladnimada waxay ahayd in dadka la isku raadiyo oo la kala irdeynin in waxay ahayd dadka la isku soo dumo shacabkii Soomaalida kala aamin baxay aaminaaddoodii kalsoonidooda lagu dhiso wixii kala irdeeyay laga waantoobo waxay ahayd kalsoonida ay dawladdu ku qabaan in la dhiso laakiin waa loogu awood sheegtay waxa la yiri waxa in tusaynaa in aan in xukunno awood sheegasha la yiraahdaa oo siyaasadeed waaye waxa laga yaabaa hadii mid ciidan ay jiri lahaydna inayba sida dhici lahayd waa lagu faanay waa lagu tamashleeyay maxaa dhacay maxaa ka bii lahaa ninka awoodda sheeganaya hadoo kartideeda leeyahay shirkad waxa la siiyay madaxtooyada dad ehelkeeda ay leeyihiin oo empire loo bixiyay ninkii dagaalamayay ee awood sheeganayay karti xumo iyo musuqmaasuq isku darsaday maxaa dhacay marka waa la kashifay karti xumadii iyo musuqmaasuqii ayaa kashifay ilaa hadda waxa la awoodi laayahay hay'adii socdaalka immigration iyo shirkadii qandaraaska lagu naasluujiyay
انت سدح مال اي فديان ستيتمنت سو سار لايين ay uga hadlaan waxa dhacay iyo wixii kama hadli karaan sababtoo ah immigration kiin waxay leedahay shirkadan khaaska ah ee madaxtooyada ka socota ee la naasnuujiyay yaa lagu sameeyay hacking-ka lagu sameeyay ayaga hacking-ka xageeda oo ka yimid shirkadiina waxay leedahay anaga kama imaan immigration-ku ka yimid labadii waa isdiidan yihiin waxna laga sheegi karo wasiiraa loo saaraa gudiyaa loo saaraa macnaheedu waxaas maxaa keenay marka corruption musuq iyo capacity xumo warninaan tayo lahayn oo musuq ka shaqeeya yaa raba dad inuu awood sheegto waxaan ka xumahay in dadkaas loo awood sheeganaya ay dad Soomaaliyeed yihiin ayagana bini aadanka sidiisaba markaad ka daba geyso inuu fal celiyo waa ku qasban yahay intaas maxaa dheer maadaama dawladda aysan xukumin garoomadaas dadkii ka imaanaya dibadda waa laga qaadaa fiisaha lacagtiisa dawladda federaalkana way qaadataa haddaad Soomaaliland tagtane waa laga qaadayaa mar kale maxaa bixinaysaa marka labo jeer lacag bixinaysaa yaa dhibana ah marka muwaadinka Soomaaliga meel kasta oo jooga dhibana ah muxuu ku qasbanaanaa marka muwaadinkaas inuu iska joogade oo dalkiisa soo aadin maxaa ka ratimaya dhaqaalihii uu keeni lahaa waxa laga yaabaa holiday markuu soo aado fasax ku yahay reerkii soo booqdo $2,000 oo ku isticmaala dalka gudihiisa inay baaqato $60 iyadoo la raadinayo yaa waxa laga yaabaa $6,000 oo dalka gudihiisa geli lahayd inay baaqato musuq tayaxumo iyo jahwareer ayaa arintaas keenay waana ayaan daro aad iyo aad u weyn saas daraaddeed haddaad fiirisaan miisaaniyadda baarlamaanka la keenay sanadkii hore fiisooyinka waxaa qornaa inay 13 milyan ka imaanayso sanadkaas 8 milyan qoran waxay ahayd cagsi inay sanadkan badatay ahayd laba jeer hoos u dhacday maxaa keenaya cid imaanaysa malade maxaa la soo doonayaa haddii la isku canaadayo awoodii dawladda haddii la isku gumaynayo oo la isku canaadayo cid gumayn yeelaysa ma laha Soomaali gumaynta waa waxay ku kala tagtay inay diido gabagabadii waxaad ogtihiin baarlamaanka xilkiisa waxa ka dhiman 5 bilood madaxweynahana waxa u dhiman 6 bil maanta waxaan joognaa 15 November Soomaa 6 bil u dhiman 15 May waxa ka dhiman 6 bil wuxuu dalku jira hubanti la'aan siyaasadeed saddex maamul oo mandate-kooda dhacay oo muddaxileedkooda expire yahay iyo laba dawladda isdiidan yihiin doorasho meel lagu ma oga heshiis lagu yahay markii hubanti la'aan dhacdo xaaladda dhaqaalahana saas ay tahay dalka amnigiisana mar kale aan ka hadli doonaa xaaladiisa ay ka daran tahay mid dhaqaalaha runtii waxa dhacaya marka in qalalaasaha oo yimaado xasiloon darro ay timaado dawladnimadii yareed ay halis gasho waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha waxa uu kor fadhiyo waa og yahay madaxtooyadiisa iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha heerka musuqa oo gaaray miidiyaha kama qarsana waa la og yahay waxaan ugu baaqaynaa inuu talada dhexda iska dhigo oo dadka Soomaaliyeed intii yartaa u hartay 6 bilood isugu yeero ogolaado extension-ka muddo kororsigana uu ku waashay iska daayo meel muddo kororsi laga helayo ma jirto horaa loo diiday asaga diiday faaladan beenta ah oo leeyahay guddi doorashaan sameeyay oo baarlamaanka ii geynayo muddo la kordhinaya oo wadadii madaxweynihii ka horeeyay way Soomaa guddiga doorashada tagay baarlamaanka intaas u baahannahay hana loo kordhiyo filinkaas waa filin horey loo soo galay waxaan leeyahay madaxweynaha u jeedinayaa dadka Soomaaliyeed xaaladda aad gelisay ma xamili karaan dawladnimadii dhibaato u keentay dadkii culays dhaqaale u keentay duruufo adag ay u keentay maanta waxaan maraynaa shalay hadii amni darro laga qixi jiray maanta waxa laga qaxayaa dhaqaale xumo iyo nolol xumo laga qaxayaa wiilka badda ku dhimanaya ama gabadha badda ku dhimanaysa kama qaxayaan amni darro waxay ka qaxayaan dhaqaale xumo dabaqada dhexe ee dalkan way guureen kulli dalka dibadiisa u guureen dhaqaalihii intii maal gashi sameeyay lahaydna way la baxeen saan sheegnay dalka xaaladdu wuxuu ku sugan yahay aad iyo aad halis ah waxaan ugu baaqayaa in oo garasho la yimaado hadduu la imaan waayo dadka Soomaaliyeed intooda wax garadka ah ee mas'uuliyadda ay saaran tahay hadday yihiin culimo hadday yihiin odayaal inta damiirka lahan ka hadlaya qofka waxa shardi sidiisaba wacyi inuu leeyahay damiirna leeyahay wacyi xaalad dalka oo ka warqabo damiir dhaqaajiyana uu leeyahay ganacsatada aqoon-yahanka in la isku yimaado oo dadka ahlu xalli wal aqdiga ah sidii u badbaadi lahaayeen aan u wada duubano wa ma santiin wa salaamu alaykum